kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka oo idinkaga imaanaya warbaahinta xogta wararka. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweyne Farmaajo iyo beesha caalamka oo kulan degdeg ku yeeshay magaalada Muqdisho. Madaxda dawlad goboleedyada Puntland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed oo soo saaray warmurtiyeed liddi ku ah dawladda Farmaajo. Maamul goboleedyada dalka ka jira oo ka soo horjeestay xeer wasiir Bayle uu gudbiyay golaha shacabka ee Soomaaliya. Muwaadiniinta u dhashay dalka Turkiga ee Soomaaliya ku sugan oo digniin adag loo diray Al-Shabaab oo faahfaahin ka bixisay injineer ay ku dishay magaalada Muqdisho. xiisad xooggan oo ka dhex taagan Somaliland iyo maamulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Ciidamada amniga oo maqaayad ku taala magaalada Muqdisho kala baxay laba wiil iyo faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaysa sababta ay u kaxaysteen. muddo kordhin loo sameeyay ciidamada Jarmalka ee ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho. Akhbaraadka dibaddana waxaad ku daawan doontaan dawladda Imaaraadka Carabta oo war ka soo saartay weerar lagu qaaday markab ay leedahay iyo nin la dhashay Cumar Xasan Al-Bashiir oo ka baxsaday xabsi militariga ay dhigeen. 13 bisha shanaad ee May sanadka 2019 daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararkeena. kuna soo dhawaada wararkaas oo faahfaahsan. Anna ku bilowna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho waxa kulamo degdeg ah la qaatay wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho. kulamadan oo ahaa kuwa albaabadu ay u xiran yihiin ayaa waxa ay dhex mareen madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, safiirka dalka Mareykanka Donald Yamamoto, safiirka Ingiriiska, kusimaha wakiilka Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa arrimaha Soomaaliya iyo wakiilo kale oo ka mid ah daneeyaasha arrimaha Soomaaliya. kulankan oo dhacay markii madaxweynaha Soomaaliya uu dib uga soo laabtay magaalada Garowe ee Puntland ayaa waxa uu kula qaatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. waxyaabaha sababay in lagu kala tago shirka magaalada Garowe ayaa madaxweyne Farmaajo waxa faahfaahin uu ka siiyay wakiilada beesha caalamka ee kulanka la qaatay. waxaana wararku ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya uu u soo jeediyay dhowr arrimood oo kala ah ee Mareykanka, Ingiriiska iyo Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ay ugu horeeyaan. madaxweynaha dalka ayaa ka dalbaday wakiilada beesha caalamka in si wadajir ah looga shaqeeyo arrimaha Soomaaliya isla markaana la joojiyo faragelinta lagu hayo dalka Soomaaliya siyaasadda arrimaha gudaha iyo tan dibadda. taageerada baalmarsan nidaamka federaalka iyo sidoo kale ogaanshaha dawladda federaalka ee la siiyo maamul goboleedyada taas oo cakirtay xiriirka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada. in beesha caalamku ay dhinac dhaqaale iyo sidoo kale dhinac farsamaba ay qayb ka qaadato wax walba oo isku soo dhaweyn kara maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha ayaa aad ugu dhaliilay beesha caalamka in faragelin ay ku hayso arrimaha siyaasadeed ee dalka taas oo sababtay in siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale hogaamiyaasha maamul goboleedyaduba ay awood isbidaan. waxay wararku sheegayaan in wakiilada beesha caalamka sida safiirka Mareykanka, kan Ingiriiska iyo wakiilka ku-xigeenka Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa arrimaha Soomaaliya in madaxweyne Farmaajo ay u ballan qaadeen inay kala shaqeynayaan dhowr arrimood oo la xiriira sidii hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay shir gaar ah mar kale iskugu imaan lahaayeen iyo sidoo kale in beesha caalamku ay dhexdhexaad ka noqoto arrimaha Soomaaliya. lama saadaalin karo sida ay u dhaqangelayaan qodobada dhinacyadu ay ka hadleen ee la xiriira xagga joojinta faragelinta shisheeye ee Soomaaliya lagu hayo. madaxda dawlad goboleedyada Puntland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa soo saaray warmurtiyeed la sheegay inuu liddi ku yahay dawladda federaalka ee Soomaaliya. shir gaar ah oo magaalada Garowe ay ku qaateen madaxda dawlad goboleedyada Puntland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa waxa ay kaga arrinsadeen sidii maamul goboleedyadu ay u samaysan lahaayeen xiriir gaar ah isla markaana iskaashiga dhinacyada hogaamiyaasha maamul goboleedyada loo xoojin lahaa si maamul goboleedyadu ay u helaan awood ay ku maquuliyaan taaka walba oo ay u dhigto dawladda federaalka. dhinacyada ayaa kulankooda inta uu socday waxay diiradda ku saareen fashilka ku yimid shirkii magaalada Garowe ee caasimadda Puntland iyo sidoo kale iskaashi xilligan ay sameystaan Puntland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen iyo madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaana u muuqday inay ka fogaadeen dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay ka baxeen ballanqaadyadii
ay horay ugu sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale taageerada ay siin jirtay inayna ka dhabaynin. madaxweyne maxamed cabdi waare ayaa lagu xantaa in dowladda federaalku ay mar ku kicisay mowjado siyaasadeed oo la doonayay in meesha looga saaro. ha yeeshee markii uu ka baxay hoggaankii golaha iskaashiga maamul goboleedyadu ay dowladdu qafiifisay dagaalka ay kula jirtay, sidaa daraaddeedna waxa uu daacad u noqday dowladda Soomaaliya isaga oo ka leexday wax walba oo dhaliilo ahaa oo warbaahinta uu siin jiray. si la mid ah madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen waxaa la sheegaa in uu kursiga ku yimid dhaqaalo badan oo dowladda federaalku ay ku bixisay sidii loo dooran lahaa, iyadoo sidoo kale xabsiga dhigtay musharaxii loo arkay in uu ugu cadcadaa kuwii markaasi la tartamayay. sidaa daraaddeed labadan hogaamiye waxaa la filayay inay ka daba saftaan dowladda federaalka, isla markaana aynan sii joogin magaalada Garowe mar haddii uu fashilmay shirkii Garowe madaxdii dowladduna ay ka tageen. hogaamiyaasha maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo Hirshabelle ayaa muujiyay in ay maamul goboleedyada kale xiriir la samaysanayaan, isla markaana dowladda federaalka xilligan ay u muuqdaan inay ka weecdeen. kulanka dhex maray saddexdan maamul goboleed ayaa laga soo saaray ugu yaraan 7 qodob oo kala ahaa: 1. Puntland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed waxaa ka go'an xoojinta midnimada Soomaaliya, taabagelinta dowlad federaal ah oo ku dhisan dastuurka, cadaaladda iyo sareynta sharciga. saddexda maamul goboleed waxay iska kaashan doonaan dhamaystirka iyo hirgelinta nidaamka federaalka ayagoo iskaashi kala sameynaya arrimahaas. maamul goboleedyada kale iyo dowladda federaalka waxa ay yeelanayaan saddexdan maamul goboleed iskaashi ballaaran, iyadoo la sameynayo guddi farsamo oo ka shaqeeya hirgelinta heshiisyada iskaashiga dhinacyada federaaleynta, amniga, ganacsiga iyo horumarinta hay'adaha dawliga ah, iskaashiga arrimaha bini'aadantinimo iyo sidoo kale in xal waara loo helo barakacayaasha. waxaa isla afgarteen saddexdan maamul in guud ahaan iskaashi guud laga yeesho arrimaha amniga, gaar ahaan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada, isweydaarsiga xogta dambiilayaasha. Puntland waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dhinacyada dhaqaalaha, dhamaystirka iyo tayeenta hay'adaha dowlad goboleedyada kale. shirku waxa uu taageerayaa shirkii horay Garowe ugu soo dhamaaday ee u dhaxeeyay wasaaradda qorsheynta iyo xubnaha dowlad goboleedyada, kaasoo magaalada Garowe ka dhacay 7 bisha May, loogana hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira golaha horumarinta qaranka. ugu dambeyntii, maamul goboleedyadan waxa ay taageerayaan in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka xaajoodaan arrimaha la xiriira sidii loo horumarin lahaa isku soo dhawaanshaha dhinacyada. waxaa la filayay in madaxweyne Waare iyo sidoo kale madaxweyne Laftagareen ay dib ugu laabtaan Jowhar iyo sidoo kale Baydhabo, isla markaana ay ku dhawaaqaan erayo ay ku taageerayaan dowladda federaalka ee madaxweyne Farmaajo, maadaama xiriir dhow ay la leeyihiin. laakiin waxa ay muujiyaan dhaqdhaqaaq kale oo siyaasi ah, isla markaana ay doonayaan in xulufo ay kula samaystaan maamul goboleedyada kale. dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa ka soo horjeestay xeer wasiir Bayle uu horgeeyay golaha shacabka Soomaaliya. xubnaha dowlad goboleedyada ee dalka ka jira ayaa waxa ay ka soo horjeesteen xeerkan oo ay ku tilmaameen mid xadgudub ka ah nidaamka federaalka iyo sidoo kale dastuurka ay leeyihiin dowlad goboleedyada. warmurtiyeedka ka soo baxay maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa lagu yiri dowladda federaalka iyo xubnaha dowlad goboleedyadu waxa ay si aan daal lahayn ay uga wada hadleen qaab dhismeedka xeerka canshuuraha dalka oo ka dhaqangalaya guud ahaan dalka, noqdana kuwa wada tashi lagu meel mariyay. waxa ayna ahayd arrin si qoto dheer loo falaqeeyay oo la isku raacay. waa dhacdo nagu cusub in wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle uu xeerka u horgeeyay golaha shacabka Soomaaliya isaga oo aan cidna kala tashanin, kuna xadgudbay higsiga nidaamka federaalka oo ka dhaqangalaha dalka oo dhan. sidoo kale xeerka uu afduubtay wasiirku waxa uu si buuxda uga hor imaanaya dastuurka dowlad goboleedyada, habka fulinta canshuuraha dalka, iskaashiga wasaaradaha maaliyadda ee xubnaha dowlad goboleedyada ee federaalka qaybta ka ah waxay si cad uga hor imaanayaan xeerka canshuuraha dalka ee wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka uu horgeeyay golaha shacabka. ugu dambeyn, waxaanu ku kalsoonahay mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya in xeerkan ay dib ugu celiyaan wasiir Bayle,
isla markaana aan la faragelin oo aan la meel marinin. dowlad goboleedyada ayaa ka digay haddii baarlamaanku uu meel mariyo isla markaana baaqan uu iska indhatiro cawaaqibka ka dhalanaya, waxayna ku tilmaameen in arrintaasi ay horseedi doonto in la sii kala fogaado. digniin culus ayaa loo diray muwaadiniinta Turkiga ee ku sugan gudaha Soomaaliya, iyadoona Al-Shabaab ay faahfaahin ka bixisay injineer ay ku dishay magaalada Muqdisho. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qarax uu ku dhintay injineer u dhashay dalka Turkiga, isla markaana dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi ugu geeriyooday. qaraxan oo ahaa mid lagu xiray gaari nooca loo yaqaan Helikiska oo watay injineerkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana sheegatay Al-Shabaab oo sheegay in ay soo qorsheeyeen dilkaas. waxa ay sheegeen inuu ahaa sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Turkiga ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Al-Shabaab ayaa sheegay in ninkan ay muddo ku daba jireen isla markaana markii dambe ay la haleeleen qarax ay gaariga ugu xireen. dhinaca kale, dowladda Turkiga ayaa digniin u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan Soomaaliya oo ay ugu digtay inay ka foojignaadaan bartilmaameedyo weerar ah oo lagu qaado. xiisada xooggan ayaa ka dhex qaraxday Somaliland iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. salaadiinta gobolka Awdal ayaa waxa ay war ka soo saareen dad lagu bartilmaameedsaday gudaha dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwa ka soo jeeda gobolkaas Somaliland ku abtirsada. waxa ay sheegeen in dadkaasi ay bartilmaameedsadeen ciidamada liyu booliska loo yaqaano ee maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, taasina ay tahay mid aysan ka sugayn maamulka Mustafa Cagjar. salaadiintu waxa ay sheegeen in maamulka Soomaalida ee dhulka Itoobiya oo xilligan u soo jeestay sidii uu beegsan lahaa dadka ka soo jeeda Somaliland ee dariska la ah maamulkaasi. ciidamada ammaanka ayaa laba wiil waxa ay kala baxeen maqaaxi ku taala magaalada Muqdisho. ciidamada amniga Soomaaliya ayaa la wareegay oo gudaha u galay maqaaxi ku taala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir, waxayna halkaa ka kaxaysteen laba wiil oo dhalinyaro ah kuwaas oo ka shaqeynayay maqaaxida. ila ku sugnaa halka ciidamadu ay dhalinyaradaasi ka kaxaysteen ayaa warbaahinta xogta wararka u sheegay in ciidamadu ay si kadisa maqaayada ku soo galeen isla markaana halka ay ka kaxaysteen labada wiil iyagoo si toos u abaaray xilli ay shaqada maqaayada ay ku jireen. muddo kordhin dheeraad ah ayaa loo sameeyay ciidamada Jarmalka ee ka howlgala gudaha Soomaaliya. ciidanka Jarmalka ayaa waxa ay qayb ka yihiin 3 howlgal oo Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa iyo Midowga Yurub ay ka wadaan wadamada Soomaaliya, Maali iyo meelo kale oo caalamka ka tirsan. xilli howleedka 3 howlgal ay qaybta ka yihiin ciidanka Jarmalka ayaa waxa loo kordhiyay muddada, iyadoo muddo hal sano loogu daray isla markaana la gaarsiiyay ilaa bisha May ee sanadka 2020. ciidamadaas oo ka sii howlgali doona gudaha Soomaaliya. ciidamada Jarmalka ayaa isku jira dhowr qaybood oo kala ah kuwa ku sugan xeebaha Soomaaliya isla markaana wata maraakiib dagaal oo la dagaalama kooxaha burcadbadeeda, iyo sidoo kale ciidamo ka howlgala gudaha Soomaaliya dhanka biriga kuwaas oo tababar iyo taageeraba siiya ciidamada Soomaaliya iyo dowladda federaalka. muddo kordhintan loo sameeyay ciidanka Jarmalka ayaa waxa ay qayb ka tahay in ciidamadu ay sii joogaan xeebaha Soomaaliya isla markaana maraakiibta dagaalka ee dalka Jarmalka ay saldhig ku sii lahaadaan xeebaha Soomaaliya iyaga oo baacsan doona waxa loogu yeero burcadbadeeda. halka wararkaas daawadayaal idinkaga imaanayaan waa warbaahinta xogta wararka iminkana akhbaaraadka dibadda. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa war ka soo saartay weerar lagu qaaday maraakiib ay leedahay. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay sheegtay in la weeraray 4 markab oo nooca ganacsiga kuwaas oo lagu qaaday weerar xilli ay marayeen gacanka Cumaan. dowladda Imaaraadku waxa ay sheegtay in shaqaalihii saarnaa maraakiibtaas in la gaarsiiyay dhimasho iyo dhaawac. sidoo kalena waxa ay sheegtay in maraakiibtaas aanan daadinayn wax kiimika ah oo halis ku ah biyaha. wakaaladda wararka u faafisay dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay sheegtay in kooxaha wax weeraray ay doonayeen inay halis geliyaan muwaadiniinta waddanka Imaaraadka Carabta u dhashay, waxayna ka dalbatay dowladda Imaaraadku beesha caalamka in tilaabo degdeg ah la qaado. ugu dambeyntiina nin la dhashay madaxweynihii hore ee dalka Suudaan ayaa ka baxsaday xabsi militarigu ay dhigeen. wargeyska Al-Yawm Tahli ee ka soo baxa magaalada Khartoum ayaa qoray in Cabbaas Xasan al-Bashiir oo la dhashay madaxweynihii hore ee xukunka laga tuuray Umar Xasan al-Bashiir uu ka baxsaday xabsi uu ku xirnaa.
wargeyska ayaa waxa uu qoray in Cabbaas Xasan al-Bashiir uu u baxsaday dalka Turkiga. wargeysku waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo qaabka ninkaas uu xabsiga uga baxsaday iyo cidda fududeysay intaba. golaha militariga ee wadanka Suudaan ee talada la wareegay ayaa xabsiga dhigay 2 nin oo la dhashay madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir oo kala ahaa Cabbaas iyo Cabdullaahi. guud ahaan daawadayaal intaa ayay ku dhan yihiin wararkii warbaahinta xogta wararka. kulanti wanaagsan daawadayaal.